ومالين تاريخي وبلشدة مسلمين مينيسوتا ay ku qorayaan baal dahab gorsheegtada waqtiga magaalada Minneapolis waxay sheegaysaa 8 iyo qadar 15 daqiiqo waxaan hadda la aadaamayaa salaada maqrib Allahu akbar Allahu akbar aadaanka salaada waxa uu ka mid yahay astaamaha islaamku leeyahay wuxuuna qofka xilligaasi aadaamaya oo muslimiinta xasuusinaya in la joogo xilliga salaada kuwaasi oo sida ugu dhaqsiyaha badan u soo beegsada isla markaana u soo degdega masaajidka si ay u dukadaan salaada xilligaasi taagan qofka marka uu ku dhasho dal aan islaam ahayn waxa dhagihiisu ay maqlaan aadaanka salaada waana caadi in dadka banaanka maraya iyo kuwa jooga guryaha ay maqlaan aadaanka salaada balse arintaasi waxa isbedeshaa marka la yimaado wadamada qurbaha gaar ahaan dalalka reer galbeedka waa kuwan qaar kamid ah muslimiinta ku nool magaalada Minneapolis oo ku faraxsan markii ugu horeysay ee aadaanka salaada ay ka maqlaan masjidka banaankiisa It was very emotional the first the adhan in Minneapolis the first time and I don't know what can I say it's very hard I felt like I'm home I'm home يعني ما أنت درين كنا سيدو يهي إلهي سبحانه وتعالى وباقدر كره يعني تنوى نعمة شعائر مسلم ولا قد حد ميل مجتمع صومالي أي كحوق وين تهاي مقالة أن كحوق وين نمبر بدنا كلنا هاي وأن ما رت أكو بدنا هاي الحمد لله إله ما هاتو نقطمات إله إسكاله إله سورتي قليا ما هذا إسكاله درين كيجا لما حسابي كرو أنا جو ما رتي هل كتشوفنا الله أكبر أن مقلنا تكبير أن مقلنا الحمد لله إلهي بنكون مهدا إسكاله haddaba markii ugu horeysay ayaa masjidka Darul Hijra ee ku yaala xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan aadaanka ay maqli doonaan dadka banaanka maraya duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo arintani qayb weyn ka qaatay ayaa TV-ga Universal u sheegay sida tan The city Darul Hijra and the organization CARE have been working together. maamulka magaalada Minneapolis hay'adda CARE iyo maamulka masjidka Darul Hijra ayaa suurageliyay in la helo fursad ay dadku aadaanka salaada ay ka maqlaan masaajidka banaankiisa maxay arintani uga dhigan tahay dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Mareykanka waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Darul Hijra ee ku yaala magaalada Minneapolis maanta xaqiiqatan waxay ka dhigan tahay maalin taariikhi ah weeye waa maalin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu guuleysiyay aadaankii in uu kor u baxo oo masaajidka ruufkiisa ama meesha ugu sarreysa laga aadaamo oo taqriiban dad aan ku qiyaasayna ilaa 10,000 ay aadaankii maqleen oo dhageysteen marka waa maalin taariikhi waa maalin farxadeed weeye ogolaashahan ayaa yimid kadib markii ururka CARE oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ay dadaal dheer u galeen sidii masaajidkaasi loogu ogolaan lahaa in codbaahiyaha xilliga aadaanka banaanka masjidka laga maqlo sida uu sharxayo Jeelani Xuseen oo madax ka ah ururkaasi waxaan ka fikirnay runtii oo fikrad murugu nagu jirtay in eedaanka kor loo dhageysto oo runtii xaq ah masaajid uu baleeyahay anaguna hadaan nahay hay'adii u dooda xuquuqda muslimiinta inaan runtii aan arinka wax weyn ka qabano marka alxamdulillah inoo suurta gashay si fudud waliba gaar ahaan duqa magaalada mayorka oo aad iyo aad noogu fududeeyay hadda waxa hortaaganahay masjidka Darul Hijra waxaana alla mahadiis ah in lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana aadaanka masaajidka ay maqli doonaan cid kasta oo maraysa masaajidka banaankiisa taasoo ah dhacdo aan horay ugu dhicin gobolka Minnesota muslimiin badan ayaa si weyn ugu farxay in sanado badan kadib ay dhagahooda maqlaan aadaanka salaada iyagoo jooga banaanka masjidka waxaana xusid mudan in ay wadamo ay ka mid yihiin Jarmalka iyo Holland ee iyaguna ay ogolaadeen in aadaanka salaada laga maqlo masaajidada banaankooda Maxamed Musamur deeq darajo Universal TV Minnesota